بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتا يجوا مركز سيدا اللايف كأودا وانا يبرتا نقول يا فيسبوك عاو حنقصوا لنا هيديان كليرا ديبسلوت أو قياسي 60 كيلومتر أجرة مقالة جوهانسبرغ waxaa halkan ka soconaya boob ay sameynayaan kooxaha burcada South Africaanka ah iyadoo ay boobeen dukaamo dhowr ah oo ku yaala deegaankan sidoo kale waxa ay isku dayaan ilaa hadda inay boobaan dukaamo kale oo iyagu markaa ka haray goobaha ganacsi ee ku yaala deegaanka Dibsloot sidaad arkaysaan waxaan ku dhex jiraa oo aan la socdaa qaar ka tirsan ganacsatada Soomaalida iyo waliba Itoobiyaanka isugu jira oo iyagu markaasi badbaadsanaya hantidooda ku taala wadadan deegaanka Dibsloot sida arkaysaan kooxaha burcada South Africaanka ah oo ay idin muuqdaan dabcan ama dabkaasi waa goobta ay ku sugan yihiin oo ay ka dhagaxyeynayaan dadka isla markaana lama gali karo oo waa goob halis ah waxa ay la socda qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo iyagu markaasi aan iska soo raacnay magaalada Johannesburg si aanu markaa u badbaadino dukaamada Soomaalida dukaamo kale oo Itoobiyaan ay leeyihiin ayaa iyagu halkan ku sugan si live ayaa u daawan doontaa waxa halkan ka dhacaya iyo nolosha Soomaalida ku nool South Africa oo inta badan lagu geysto dhibaatooyin kala gedisan oo isugu jira dilal iyo waliba dhac iyo boob loo geysto hantidooda iyadoo markaasi aysan jirin cid markaasi u soo gurmato marka laga reebo in iyagu lafaantooda ay iscaawiyaan share gareeya asxaabay si share gareeya si arkaysaan xabad ayaa meel walba ganacsatada Soomaalida ayaa iyagu markaasi isku dayeen badbaadiyaan goobtan ayaa ah goob halis ah oo runtii cabsi badan ay ka muuqato si arkaysaan ganacsatada Soomaalida iyo waliba Itoobiyaanka isugu jira ayaa badbaadinaya hantidooda kooxaha burcada ah sida arkaysaan iyaga ayaa samaystay dhufayskan iyo waliba dabkan shitay si share gareeya asxaabay hal si share gareeyo goobta goob halis ah oo cabsi ah ganacsatada Soomaalida ayaa iyagu si live markaa isku difaacaya iskalaal No. Don't throw the stone, please. Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa iyagu markaasi iska difaacaya kooxaha burcada South Africaanka ah ee isku dayay inay boobaan hantidooda waxa halkan ka soconaya runtii gurmad culus oo ay sameynayaan Soomaalida iyo waliba Itoobiyaanka oo iskaashanaya iyo waliba ajaanibta kale ee halkan ku nool goobaha ayaa goobaha halis ah iskala xabadora si share gareeya barnaamijka live ayaan ugu jiri doonaa inagoo wareysan doona qaraxsada Soomaalida iskala iskala dhagaxniyo dhagax iskala ali ma jiro wax booliis ah oo caawinaya ganacsatada iyadoo goob kasta ay tahay goob halis ah booliis ma joogaan goobtan sida arkaysaan waa goob si toos ah ay isku weydaarsanayaan ama ganacsatada Soomaalida iyo waliba ajaanibta kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika ay isku difaacanayaan oo ay ilaalinayaan hantidooda iyadoo goobtu ay tahay goob aad khatar u ah marka loo eego sida jawigu uu yahay dukaamadan aad arkaysaan oo dhammaantood xiran waxa waardiyeynaya oo mataqaanaa kor ka ilaalinaya ganacsatada Soomaaliyeed iyo waliba kuwa ajnabi ah goobahana waa goobo halis ah oo runtii mararka qaar ay dhici karto in dilal meeshan ay ka dhacaan maadaama kooxaha burcada South Africaanka ay yihiin kuwa hubaysan oo qoryo wata sida aad maqlaysaan rasaasta ayaa meel walba ka dhacaysa oo ay ridayaan kooxaha burcada South Africaanka Ilaahay naga bixiyo u soo duceeya ganacsatada Soomaaliyeed iyo waliba kuwa ajnabiga ah ee muslimiinta ay ku nool dalka Koonfur Afrika oo caawa xaalad aan fariid ah ku jira شهر هالدو أصحابي شهر هالدو
دمي dabkaas aad arkaysan goobtan waa laga wareegay kooxaha burcada oo waxa gacanta ku dhigay ganacsatada Soomaalida iyo waliba ajnabi kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika waxa ay daminayaan taageeradii markaasi ay shideen kooxaha burcada gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Maxamed Umar Talyaani ayaa caawa kamid ah dadka Soomaaliyeed ee iyagu soo gurmaday ee halkaana ka ilaalinaya kooxaha burcada oo isagu markaasi ku jiro hawlgal culus sida arkaysaan xaaladdu waa meel khatar ah waxa ka baxsan kara nin raga nin ma dhaafta ayaa ka baxsan kara sida u jeedaan ganacsatada Itoobiyaanka ah ee iyagu markaasi ku nool deegaanka waxa ay wataan hub ay isku ilaalinayaan bangada ay wataan sida arkaysaan oo aad ugu jeedaan gacanta kor show them please show them Somali waxa ku male raala wada Itoobiyaanka ku male raala brado ay war xaaladu waa والله الحمد لله be careful حالتك شكي وسيدي درانك هذا قب حلقه قب ما شاء الله حالتك شكي حالته حساسه دول وجهه حالته laga sheekeeyo meesha uu taalo dib kan dib عمر بنتو اي برادر هذا عندي والله ساعه نو بلاابه ساكay ilaa 2 saac waa gart ilaa saacadan waa 4 saac oo habeenimo u maleeyaa saacadan waa gart saana la isku soo horjeeda marka waxa waaye waa isku soo horjeednaa barna waa dukaamanka waa inay jabsadaan isku dayeen hadda waa iska celinay insha Allah haddana waxaan inaan hantidaa u dhimano ayaan rabnaa insha Allah hadda Ilaahay marka hadda goobtan aan arkayno dabcan waa goob dab ee ka shidaan kooxaha burcada sidee ku suurta gashay in la wareegtaan wallahi waa la wareegnay waxa waaye rag ilaa rag aan soo gurbaday oo maaragtay nooga yimiday waxa waaye waana la wareegnay insha Allah hadda Ilaahay haddana waxay ku jiraan mukubadan insha Allah waa gelinaa caawa inaan jiifano ku matala gelin insha Allah hadda Ilaahay tukaanka xagee ku yaala adiga tukaankayga wuxuu ku yaalaa sigis waa ka hadda gadaashayda waaye alxamdulillah wax hadda dhiban igama gaarin goobta korontadii ayaa laga jaray goobta yaa korontada ka jaray korontada laga jaray dawladda ka jartay waxa korontaa male tukadan marka hadda dhagax iska ilaalay dibka dib marka insha Allah hadda Ilaahay waa taacib wala insha Allah wali sidaad arkaysaan midkan waa mid kamid ah kooxaha burcada South Africa oo isku daynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka celiyaan goobtan kala okay brother sorry just go okay kala guys kala ninkan عبوا هذيك وحانيو نكان دغال ودا ماهنه قاورta siiyo waxa siga qabta adig war anaga dhaxdar kaale dhagaxa bilowday aan kaga bado dhagaxa daawadayaal sidaad u jeedaan goobtan ayaa goob khatar ah oo waliba goob dhufays ah sidaad arkaysaan oo ay isku hayaan burcada South Africaanka oo iyagu markaa boobaya dukaamada Soomaalida iyo waliba ajaanibta kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika iyo waliba ganacsatada ajaanibta oo Soomaalidu horboodayso oo iyagu markaa iska difaacaya hantidoodana ka ilaalinaya kooxa saakay ayuu bilowday sida ay noo sheegeen qaar ka tirsan dadka goobjoogayaasha ama ganacsada ay ku nool halkan boobkan ay sameynayaan walina waxa soconaya dabcan sida arkaysaan fariin kale ayaa ka soo yeeraysa dhagaxaad kale dhagax si arkaysaan dhagaxaan ay soo ridayaan kooxaha burcada South Africaanka goobahani waa goobo halis ah وانا نبقى اقول هالمر نيو هالمر one time والله كان dhagaxaan qaata dhagax سما مسدفان ورا dhagax ku dhacay goobtu waa goob halis ah dabcan saaxiibayaal si ay u jeedaan saas ayaa dhacaysa meel ka dhacaysa
noloshan ay ku nool yihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika waxaan ka codsanayaa asxaabta inay share gareeyaan maadaama goobahan ay yihiin goobaha halis ah Let's go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go inside, all. Go inside. Let's go. Go. على الدفاع جايز جو دافع جايز على الدفاع sida arkaysaan waxa socota goobtaas mugdiga u jeedaan waa goobta ay ku sugan yihiin kooxaha burcada waxaana wali sida arkaysaan rasaas ayaa ka dhacaysa halkaasi iyadoo kooxaha burcada ay soo ridayaan rasaas dhalinyarada Soomaalidana way isdifaacayaan wadooyin fara badan ayaa soo gala goobtan wada kastana waxa taagan kooxaha burcada oo iyagu markaasi boobaya dukaamada Soomaalida iyo waliba Itoobiyaanka ay ku leeyihiin halkan inkastoo caawa ay si wada jir isku difaacayaan ganacsada wali waxa soconaysa rasaas iyo waliba ma fi hali karo dabcan سمع مننا شكرا الله وروحان xogayaha guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Umar Ali Umar Bantu ahna madaxa ammaanka ee dhalinyarada Soomaalida Koonfur Afrika ayaa caawa halkan ku sugan شركة سالة ثمانية شركة روسكا جنكتر ما نقرأ في سنكو كلام سكلال طبعا سيدا أركيسان شركة كوحاء برعدة يا لقى سوق هذي يجوا مركز دوني كوحاء برعدة سوق أفريقيا إنه يكون قران تكمل كركودا أما يدربيه وقصوا بودان سي أو بابان هنتيدا الجانب تاع كنا ولد الكونفر أفريقيا يولي بقى عساس صوماليات يكونوا يدلك قدومية محمد عمر تلياني أيا قوبتن كسوغان isagoo markaasi jaranjarta wada difaacayana ganacsatada Soomaaliyeed caawa halkan dhibaatada loogu geysanayo iskala dhagax iskala leeyahay toosha u baahan dabcan tooshan daarayna xirsiga waxaan ku dhac dhagax ma ku dhac goobahan ma aha goobo baabuurta loogu talagalay baabuurkaas wuxuu noqon doonaa ma naqaan ma baabuurka waxa madowga ay leeyihiin oo burcadu ay wataan ma baabuur booliis ah ma baabuur ganacsatada ay leeyihiin lama garanayo dabcan xitaa baabuurtu way cabsanayaan goobahan aad u jeedaan runtii halista ah ay ku nool yihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika waa goobo runtii nafta aan lagu aamini karin indhahana aan roonayn halkaas ay ganacsatada Soomaaliyeed maalin walba ka biilaan qoysaskooda Soomaaliyeed ku nool Soomaaliya iyo ay ku caawiyaan familiadooda maadaama Soomaaliya ay tahay goob wali ammaankeedu uusan dhameystirnayn gudoomiyaha dhalinyarada Soomaalida Koonfur Afrika Maxamed Cumar Talyaani ayaa caawa horteeda taagan gudoomiye soo dhawaw dabcan caawa gurmad xoog la ayaad goobta ka geysateen adiga iyo ganacsada ajaanibta ay ku nool deegaanka Dibslood ee qiyaasii 60 kilomitir jira magaalada Johannesburg waa sidii caawa dareenkaada sidee hawshan ku bilaabatay arintan goormay الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد إن عنا أوجدين هذا وحنك سود من الدبب ودوين كوجوين نمن بدن ودن كأول شيء أنا ودوين كجري سي ودوين كأوجران بوليس كأمدت سوق جرمانيو سي هنتظر ماشي تعالى ودعان أما أوقات تاس أوجد كرنت حافظ جبهة ويكجران تاي سرسك أيام كسر قلني حالة أذق أيام كسر قلني حق أيام ودوين كسر فرني الحمد لله سن بدلي أيام وإيماني حافظنا حقوقنا dadka dariska aan Itoobiyaanka oo meel walba daadsanaa wili waxaan ka dul imaanay dukaan la jabsanayay markaan soo galeynay oo wili dhalinyaro Itoobiyaan wadada noo istaageen ay dhaheen warkaalay noo gurmada hada alxamdulillah meeshan waan ka kicinay nimankii dukaankiina wiilal kale Soomaaliya ku jiro meesha aan ka soo badbaadinay haddana waa ku hadda soo qaylinayo way soo laabteen sida u jeedin mar walbana sidaasaan gadaalna u ruuxna isku dayeena mana dhici doonto insha Allah taala intay naf Soomaaliya ama naf kale Western Africa soo jeeday in ay dib ku gaarto waana ka difaacan doonaa gaarigan ayaa runtii shukul gelinaya xaqiiqada markaano gaari tabcan Itoobiyana baki dabcan daawadayaasha qaar ayaan soo weydiinay booliska caaway sida ogtiisa Koonfur Afrika ma jiro wax booliska oo shaqeeya ama meelaha halista ka shaqeeya boolisku waxay ku egyihiin meelaha ammaankoodu sugan yihiin goobaha kale boolisku ka baqaan oo goobaha halista ah kooxaha burcada iyo waliba South Africaanka ay markaa isku dayeen boobaan hantida Soomaalida iyo jaanibta ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa inta badan iyagu soo weerara goobahan
waxaana iska celiya oo si raganimo leh isaga celinaya ganacsatada Soomaaliyeed oo iyagu markaa caaw muujinaya geesinimo iyo karti dheeraada waxa ay ugu tagayaan goob kasta oo ay kooxahaasi ka agdhow yihiin goobahaas sida u jeedaan waxaan filayaa in maqlaysaan codkooda way isku yeeranayaan waxa ay foori ay sameynayaan iyagoo dhawaxaan soo tuuraya si markaasi ay goobtaasi waxa soo laabtay oo maasha Allah soo laabtay Ethiopiankii Soomaalida ayaa soo laabtay mar kale iyagoo isku day doona inay kala wareegaan goobtaas kale waa daawan doontaan oo si live ayaa u daawan doontaan sida goobtaas looga wareegayo Soomaalidu runtii waxay muujinayaan geesinimo iyo karti dheeraada maasha Allah hal si shar gareeyo asxaabay hal arko goobaha halista ah maalin walba waxaad maqashaan ganacsato Soomaaliyeed ayaa lagu dilay Koonfur Afrika waxaad maqashaan dukaan Soomaaliyeed ayaa lagu dhacay kooxaha wax dhacaya iyo sida ay yihiin iyo sida ay xuso hujuumaan ayaa si live halkan uga daawan doontaan haddii Rabbi idmo oo Ilaahay nafta uu nagu amaan yeelo dabcan waa horumar umaleena gadaal aan loo dhagaxaan ay soo tuureen sida arkaysan si arkaysan baangado ayay wataan Let's go like this. We come from the better like that. What hard people? Let's go this way. We come from back. Otherwise, we are doing nothing. Yeah. Serious. One time. No way. Okay, you show us. Is there any way that side? Nothing way. Only that side. I didn't go that side. Just show us. Want to go that side? Okay, let's go this way. No, they run. You must run. سمع سلبل sii shargaray asxaabay waxaan codsanayaa in sii wada shargarayo maadaama dad fara badan oo Soomaali ay ku nool yihiin dalka Koonfur Afrika ayna daneynayaan arkaan videogan ama ay si toos ah oo live ah u daawdaan goobahan aad arkaysaan dhagaxaanta sida loogu galo waa u jeedaan dhagaxaantan meesha ku daatay waxaa soo ridaya oo meel walba ku soo tuuraya kooxaha burcadda ee South Africaanka oo iyagu markaa doonaya inay boobaan dukaamadan horteena ah oo ay difaacayaan ganacsatada Soomaalida iyo waliba ajnabiga goobtan ayaan ku dhuumanaya laftigeeda maadaama goobta ay tahay goob furan ah sima come here sida u jeedaan daawadayaal dhagaxaantan waxaa soo tuuraya kooxaha burcadda ah goobtuna waa goob halis ah oo runtii aan lagu aamini karin nafta laakiin waxaa raganimo ay muujinayaan ganacsatada Soomaalida iyo waliba dhalinyarada Soomaaliyeed oo iyagu markaa sameynaya gurmad xoogan gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed iyo tiimka la shaqeynaya ayaa waxa ay mar walba diyaar u yihiin inay badbaadiyaan oo ilaaliyaan hantida Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ماشي رفعني ورن ديب سلود وانو ديب سلود كتاق انت عاود ديب سلود واي عاو مويس ديب سلود شو والله تكمل قارن ولا بتبادي قارنا كله ولي ولا بتبادينا حد ولا سكوت كلام وايد بوحان عيدن كوا بوحان يا اسكلا ريحانا فهمكم مقلايا يا ابتي باي بوبك waa ka jira kaashkar hortiisa ma joognaaba kaashkar hortiisa joognaa waxa way meel walba taagan yihiin caawa waxay rabaan inay meel walba agta mariyaan marka laakiin kulli Ethiopian-ka way isdifaacayaan oo Soomaalidana dad badan ah jooga واب تكمل توبيان وبدنا يبوبين لكن سومالي ولي وحبل لقى مبوب سومالي وده قال ما daawadayaal sidaad u jeedaan goobahani waa goobo halis ah dhalinyaro Ethiopian ayaa meel walba iyagu markaa dhooban sidoo kale dhalinyarada Soomaalida ahna caawinaya laakiin Soomaalidu waxay muujinayaan geesinimo dheeraad ah maadaama ay iyagu horboodayaan Ethiopiaanku way baqayaan inta badan Soomaalida ayaa meel walba tusaysa oo dhiirigelinaysa si ay u dagaalamaan gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed Koonfur Afrika Maxamed Umar Talyaani ayaa isagu markaa
dhagax ayaa la soo riday sida arkaysaan dabcan meeshan inaan ka gambado waaye ani naftigeyga halis All of them died. They are throwing the stone. No. He's running. He's running. He's running. How many are they? Maybe 7 guys. 7. Come this side. Come that side. Come this side. Fuck off. Yeah. Come this side. Fuck off. Come here. You are man. Come this side. I want to show you. Come here. It's stupid. Don't throw the brother. Don't throw. Don't. Don't throw, please. Come Here is a this side, resident. Baba. Don't throw. Yeah. Don't throw the stone, please. Fuck off. Come here. sida arkaysaan ganacsada iyagoo Etoobiyaanka ayaa dagaalamaya dhalinyarada Etoobiyaana sida arkaysaan waa ay dagaalamayaan oo waxa ay diyaar u yihiin iska celiyaan kooxaha burcada ah ee iyagu markaasi naftooda jaraya maalkoodana dhacaya waxa ay muujinayaan runtii karti iyo geesinimo dheeraad ah Soomaalida ayaa caawinaysa sidoo kale goobahan tukaankan aad arkaysaan waxa iska leh kooxo Etoobiyaana oo iyagu markaasi hortan ka caytamaya waxaan iska dhagax la soo tuuray Come. Who called them? Or who called them? No, I see the monk. Come inside, come Baba. No, don't throw this phone, please. Don't throw this. No way, no chance. أصحابته دمانتي وإسلامي أصحابته دمانتي وإسلامنتيهين halkan u soo duceeyo dhammaan ganacsiyada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika oo iyagu marka xaalad khatar ah mar walba ku jira Soomaalida iyo ajaanibta kale oo Etoobiyaanku ay ka mid yihiin mar walba waa kuwa u diyaarsan hazid fiicnay waran محمود dib suluud way saaxib even you catching one is fine. هاني وماشان أنت هاجني كسر تابع لايف موجود وماشان كسر هذا إني وحاول كنتي أو صادق يو وني ما قص هداتك عين مخرك نسوي عن هذا إني ماشان حالد وهالس نزل نقص وجار عمل هذا حالد وادقنت هني هو إنك استو هو بدنا هذا ملان أوبن oo dhagaxaan soo tuurtuura marka laakiin hadda xaaladdu waa okay wadaganta gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed Koonfur Afrika ayaa horteeda taagan Maxamed Cumar Talyaani soo dhawaad Talyaani si live ayaad ugu jirtaa Facebooka waxa ku daawanaya 800 oo qof ku dhawaad oo Soomaaliya oo dunida dacaladeeda iyo waliba South Africa la jooga uga sheekay xaaladda dalka iyo waliba sida hadda wax u dhacayaan sida u jeediyeen meel furan ayaan hadda joognaa nimankii wadanka u dhashaana isku dayay koronto la'aan xaafadda ka jirta awgeed ayayna isku dayayaan maanta saakada hore ayuu bilowday dhibkan iyo weerarkan adiga cabsi badan lagama qabin ganacsiga gudaha ku yaala locationka laakiin galabta markii la gaaray ayay bilaabeen inay ganacsiyada faraha la soo galaan alxamdulillah sidaas awgeed Soomaalida gurmadna soo weydiisatay haddana waxaad moodaa xaafadda boolis inuu gudaha u soo galay baawarkaas ay u jeediyeen waa boolis inta badan gudaha u soo galaan markii locationada dhibkan ka jiro sababtoo ah maanta meeshan daba ka shidnaa markaan soo galnay ayaa dabka daminay nimankan naga carareen nooc walba ku kicinay iyo farsamo kasta ku kicino hada alxamdulillah ducaan weydiisanayna aaw jiif ma jiro soo noqoteen jiifka ma jiro cabsi badan ayaa ka jirta Soomaaliduna hadda waxay go'aansatay inay wax walba jawaab ka bixiso intii ay maalkooda la qaadan lahaa in mar dambe aan jaxanjix iyo jiljilaac aan ku gelin arintan walaalaha Etoobiyaanka ayaan garab taagan who can speak English someone must come and speak your language. Come, brother. Some guys, they can understand your language. Okay, come, brother, come. How's the situation? The problem is here. Okay. Somebody is also in then you fighting, you broken shop. Now you see the problem. How many shops are they looting? Even I think so is 7. 7 shops they looting until he still is fighting. Somalia and Ethiopia is together. Just speak your language. Each other.
ما شاء الله ما شاء الله. Thanks. لما يشوف في بصدق في بسرعة في يكويو. Sinti shop زي لوت. يبقى في. Sinti shop زي لوت. سمع. نايزيجا سمع. Sinti shop زي لوت. ماتو. ماتو شوز. يبقى في. ايش محمدو بوليس كيسكيل علي بوليس اسوق لورا si arkaysaan si live u daawada kooxaha burcadda South Africa waa kuwa si toos ah ayaa loo dagaalamaya oo shab la isku dhahay hadda dabka ayaa iga dhici raba marka si shargareeyo baraadaas xaaladaas ayaan ku jirnaa waxaana rajeynayaa in ganacsatada iyo waliba ajnabiga kale iyagu isgarabsanay inay caaw ka guuleysan kooxaha burcadda oo iyagu markaa doonaya inay boobaan hantida Soomaalida iyo waliba ajaanibta kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika si arkaysaan dagaal toos ayaa bilowday kooxaha burcadda rasaas ayay wataan oo hub hubeysan yihiin meel walbana waxay la taagan yihiin qori sidaas iyo nabadgelyo ayay kaga tagayaa saaxiibayaal oo soo duceeyo dhammaan waxa la loo soo duceeyay ganacsatada Soomaalida oo iyagu markaa dhibaato mar walba ku jira kuwa mar walba mataqaana cadow gacanta ugu jira xaalad kastana ku jira gaari Ethiopian ay saaran yihiin gurmad ayaa goobtan soo gaaray waxa la qaadayaa alaabtii ama mataqaana dhagaxaantii iyo waliba taayiradii ay jidka ku gooyeen kooxaha burcadda si live ayaa u daawanaysan sa arkaysan caawa telefoonka oo dabkiiga dhici raba goobtana oo goob aan koronto lahayn waxaan kaga tagayaa saaxiibayaal sidaas iyo nabadgelyo noo soo duceeya saaxiibayaalow waa u jeedaan xaaladdu sida ay tahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan ka codsanayaa inaad sii sheergaraysaan si loo arko xaaladda halista ay mar walba ku jiraan Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika iyo goobahan halista ay ku nool yihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانا أصحابتا يجو مركا سيدا اللايف كاو داوانا برتا أي نقول يا فيسبوك عاو waxaan ku suganahay deegaanka la yiraahdo Dibsloot oo qiyaastii 60 kiiloomitir u jira magaalada Johannesburg waxa halkan ka soconaya boob ay sameynayaan kooxaha burcadda South Africaanka iyadoo ay boobeen dukaamo dhowr ah oo ku yaala deegaankan sidoo kale waxa ay isku dayaan ilaa hadda inay boobaan dukaamo kale oo iyagu markaa ka haray goobaha ganacsi ee ku yaala deegaanka Dibsloot sidaad arkaysaan waxaan ku dhex jiraa oo aan la socdaa qaar ka tirsan ganacsatada Soomaalida iyo waliba Ethiopianka isugu jira oo iyagu markaasi badbaadsanaya hantidooda ku taala wadadan deegaanka Dibsloot sidaad arkaysaan kooxaha burcadda South Africaanka waa idin muuqdaan dabcan ama dabkaasi waa goobta ay ku sugan yihiin oo ay ka dhagaxyeynayaan dadka isla markaana lama geli karo oo waa goob halis ah waxa ay la socda qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyagu markaasi aan iska soo raacnay magaalada Johannesburg si aanu markaa u badbaadino dukaamada Soomaalida dukaamo kale oo Ethiopian ay leeyihiin ayaa iyagu halkan ku sugan si live ayaa u daawan doontaa waxa halkan ka dhacaya iyo nolosha Soomaalida ku nool South Africa oo inta badan lagu geysto dhibaatooyin kala gedisan oo isugu jira dilal iyo waliba dhac iyo boob loo geysto hantidooda iyadoo markaasi aysan jirin cid markaasi u soo gurmato marka laga reebo in iyagu lafaantooda ay iscaawiyaan sheergareeya asxaabay si sheergareeya si arkaysaan xabad ayaa meel walba ganacsatada Soomaalida ayaa iyagu markaasi isku dayeen badbaadiyaan goobtan ayaa goob halis ah oo runtii cabsi badan ay ka muuqato si arkaysaan ganacsatada Soomaalida iyo waliba Ethiopianka isugu jira ayaa badbaadinaya hantidooda kooxaha burcadda sida arkaysaan iyaga ayaa samaystay dhufayskan iyo waliba dabkan shitay si shargaray asxaabay hal si shargarayo goobta qof halis ah oo cabsi ah ganacsatada Soomaalida ayaa iyagu si live markaa isku difaacaya iskalaal
No. Don't throw the stone. Don't throw the stone, please. Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa iyagu markaas iska difaacaya kooxaha burcadda South Africaanka ah ee isku dayay inay boobaan hantidooda. Waxaa halkan ka soconaya runtii gurmad culus oo ay sameynayaan Soomaalida iyo waliba Itoobiyaanka oo iskaashanaya iyo waliba ajaanibta kale ee halkan ku nool. goobaha ayaa goobaha halis ah. iska la xabad dora si shargareeya barnaamijka live ayaan ugu jiri doonaa inagoo wareysan doona qaraxsada Soomaalida. iska la iska ilaali dhagaxniyo dhagax iska ilaali. ma jiro wax booliis ah oo caawinaya ganacsatada iyadoo goob kasta ay tahay goob halis ah. booliis ma joogaan goobtan sida arkaysaan. waa goob si toos ah ay isku weydaarsanayaan ama ganacsatada Soomaalida iyo waliba ajaanibta kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika ay isku difaacanayaan oo ay ilaalinayaan hantidooda iyadoo goobtu ay tahay goob aad khatar u ah marka loo eego sida jawigu uu yahay. dukaamadan aad arkaysaan oo dhammaantood xiran waxa waardiyeynaya oo mataqaanaa kor ka ilaalinaya ganacsatada Soomaaliyeed iyo waliba kuwa ajnabi ah. goobahana waa goobo halis ah oo runtii mararka qaar ay dhici karto in dilal meeshan ay ka dhacaan maadaama kooxaha burcadda South Africaanka ay yihiin kuwa hubaysan oo qoryo wata. sida aad maqlaysaan rasaasta ayaa meel walba ka dhacaysa oo ay ridayaan kooxaha burcadda South Africaanka. Ilaahay naga bixiyo u soo duceeya ganacsatada Soomaaliyeed iyo waliba kuwa ajnabiga ah ee muslimiinta ay ku nool dalka Koonfur Afrika oo caawa xaalad aan fariid ah ku jira. شير هالدو أصحابي شير هالدو. دمي dabkaas aad arkaysaan goobtan waa laga wareegay kooxaha burcadda oo waxa gacanta ku dhigay ganacsatada Soomaalida iyo waliba ajnabi kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika. waxa ay daminayaan taageeradii markaasi ay shideen kooxaha burcadda. gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Maxamed Cumar Talyaani ayaa caawa ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee iyagu soo gurmaday ee halkaana ka ilaalinaya kooxaha burcadda oo isagu markaasi ku jiro howlgal culus. sida arkaysaan xaaladdu waa meel khatar ah. waxa ka baxsan kara nin raga nin ma dhaafta ayaa ka baxsan kara. sida u jeedaan ganacsatada Itoobiyaanka ah ee iyagu markaasi ku nool deegaanka waxa ay wataan hub ay isku ilaalinayaan. baangada ayay wataan sida arkaysaan oo aad ugu jeedaan gacanta kor. show them please show them. Somali waxa ku male raala wada Itoobiyaanka ku male raala brother. ay war xaalad wasii والله الحمد لله. be careful. حالتك شكي وسيدي درانك هذا قوم حلقة قوم ما شاء الله. حالتك شكي حالته حساسة دول وجهه حالة لك شكي ما شاء الله تعالى. دم كان دم عمر بنتو ايوه برادر هذا عندي والله ساعة نو بلابس هكذا إلا 2 ساعة واقرت إلا ساعدان وأفر ساعة بين نمان نمريها ساعدان واقرت سنة اللي سويته هرجيدا marka waxa waaye waa isku soo horjeednaa barna waxa dukaamada waa inay jabsadaan isku dayeen hadda waa iska celinay insha Allah haddana waxaan inaan hantida u dhimano ayaan rabnaa insha Allah hadda Ilaahay marka hadda goobtan aan arkayno dabcan waa goob dab ee ka shidaan kooxaha burcadda sidee ku suurta gashay in la wareegtaan wallahi waa la wareegnay waxa waaye rag aan noo soo gurbaday oo maaragtay nooga yimiday
waxaa waaye waana la wareegnay insha Allah haduu ilaahay haddana waxay ku jiraan mukubadan insha Allah waan gelinaa caawa inaan jiifano ku matala gelin insha Allah haduu ilaahay dukaanka xagee ku yaala adiga dukaankayga wuxuu ku yaalaa sigis waa ka hadda gadaashayda waaye alxamdulillah wax hadda dhiban igama gaarin goobta korontadii ayaa laga jaray goobta yaa korontada ka jaray korontada laga jaray dawladda ka jartay waxa korontaa male mukubadan marka hadda dhagax iska ilaalay dibka marka insha Allah haduu ilaahay waa taacib wala dadaalina insha Allah antiday wali sidaad arkaysaan midkan waa mid kamid ah kooxaha burcadda South Africaanka oo isku daynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka celiyaan goobtan kala okay brother sorry just go Contact me my photo. okay Take photo when you come here. kala guys kala hada ninkan cab waa adik waxaaniyo ninkan in dagaal wada maahane Bawrta siyo waxa siga qabta adig. War anaga dhaxdar kale. dhagaxa bilowday aan kaga bado dhagaxa daawadayaal sidaad u jeedaan goobtan ayaa goob khatar ah oo waliba goob dhufays ah sidaad arkaysaan oo ay isku hayaan burcadda South Africaanka oo iyagu markaa boobaya dukaamada Soomaalida iyo waliba ajaanibta kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika iyo waliba ganacsatada ajaanibta oo Soomaalidu horboodayso oo iyagu markaa iska difaacaya hantidoodana ka ilaalinaya kooxa saakay ayuu bilowday sida ay noo sheegeen qaar ka tirsan dadka goobjoogayaasha ama ganacsada ay ku nool halkan boobkan ay sameynayaan walina waxa soconaya dabcan sida arkaysaan fariin kale ayaa ka soo yeeraysa dhagaxaad kale dhagax sida arkaysaan dhagaxaan ayay soo ridayaan kooxaha burcadda South Africaanka goobahani waa goobo halis ah وانا نبقى اقول هالمر نيو هالمر وان تايم Wale keena. dhagaxaan qaata dhagaxaan sima musdifan wara dhagax ku dhacay goobtu waa goob halis ah dabcan saaxiibayaal si ay u jeedaan saas ayaa dhacaysa meel kasta ka dhacaysa noloshan ay ku nool yihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika waxaan ka codsanayaa asxaabta inay share gareeyaan maadaama goobahan ay yihiin goobo halis ah Let's go. 1 2 3 1 2 3. Go inside all. Go inside. Let's go. Go. على الاستدفاع جايز جو جايز على الاستدفاع sida arkaysaan waxa socota goobtaas mugdiga u jeedaan waa goobta ay ku sugan yihiin kooxaha burcadda waxaana wali sida arkaysaan rasaas ayaa ka dhacaysa halkaasi iyadoo kooxaha burcadda ay soo ridayaan rasaas dhalinyarada Soomaalidana way isdifaacayaan wadooyin fara badan ayaa soo gala goobtan wada kastana waxaa taagan kooxaha burcadda oo iyagu markaasi boobaya dukaamada Soomaalida iyo waliba Itoobiyaanka ay ku leeyihiin halkan inkastoo caawa ay si wada jir isku difaacayaan ganacsada wali waxaa soconaysa rasaas iyo waliba ma sii hadli karo dabcan sima mindina shukr alle Waruhan xogayaha guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Umar Ali Umar Bantu ahna madaxa ammaanka ee dhalinyarada Soomaalida Koonfur Afrika ayaa caawa halkan ku sugan jarjarta seel sameeyay maxaa sameeyay jarjarta ruuska jingadar baan ku koran si isku galaan iskalaal dabcan sida arkaysaan jarjaradan kooxaha burcadda ayaa laga soo qaaday iyagoo markaasi doonaya kooxaha burcadda South Africaanka inay ku koraan dukaamada korkooda ama ay darbiyada uga soo boodaan si ay u boobaan hantida ajaanibta ee ku nool dalka Koonfur Afrika iyo waliba ganacsatada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dalka gudoomiye Maxamed Umar Talyaani ayaa goobtan ku sugan isagoo markaasi jarjarta wada difaacayana ganacsatada Soomaaliyeed ee caawa halkan dhibaatada loogu geysanayo iskala dhagax iskala liye tooshan u baahan dabcan tooshan daarayna xirsuga waxaan ku dhaca dhagax ma ku dhaca goobahan ma aha goobo baabuurta loogu talagalay baabuurkaas wuxuu noqon doonaa ma naqaan ma baabuur kooxaha madowga ay leeyihiin oo burcaddu ay wataan ma baabuur booliis ah ma baabuur
ganacsato ay leeyihiin lama garanayo dabcan xitaa baabuurtu way cabsanayaan goobahan aad u jeedaan runtii halista ah ay ku nool yihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika waa goobo runtii nafta aan lagu aamini karin indhahana aan u roonayn halkaas ay ganacsatada Soomaaliyeed maalin walba ka biilaan qoysaskooda Soomaaliyeed ku nool Soomaaliya iyo ay ku caawiyaan familiadooda maadaama Soomaaliya ay tahay wali ammaankeedu oosan dhameystirnayn gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed Koonfur Afrika Maxamed Cumar Talyaani ayaa caawa horteeda taagan gudoomiye soo dhawaw dabcan caawa gurmad xoog la ayaad goobta ka geysateen adiga iyo ganacsada ajaanibta ay ku nool deegaanka Dibsloot qiyaasii 60 kilomitir jira magaalada Johannesburg waa sidii caawa dareenkaada sidee hawshani ku bilaabatay arintan isgoormay بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد إن عنا أوجدين هذا وحن كسر دميني دبب ودوين كوجوين niman badan oo wadanka u dhashay wadooyinka jaray si wadooyinka uga jiraan booliska ama dadka soo gurmanayo si ay hantida meesha taalo ay u dhacaan ama ay u qaataan sidaas awgeed korontada xaafaddu gabi ahaan way ka jaran tahay si riski ayaan ku soo galnay xaalad adag ayaan ku soo galnay xoog ayaan wadooyin ku soo furanay alxamdulillah si nabadgelyo ayaan u imaanay xaafadana waxa u badan dadka dariska aan Itoobiyaanka oo meel walba daadsanaa wili waxaan ka dul imaanay dukaan la jabsanayay markaan soo galeynay oo wiilal dhalinyaro Itoobiyaan ah wadada noo istaageen ay dhaheen warkaalay noo gurmada hada alxamdulillah meeshan waan ka kicinay nimankii dukaankiina wiilal kale oo Soomaaliya ku jiro meesha aan ka soo badbaadinay haddana waa kuwa hadda soo qaylinayo way soo laabteen sida u jeedin mar walbana sidaasaan gadaalna u ruuxna isku dayeena mana dhici doonto insha Allah taala intay naf Soomaaliya ama naf kale oo Western Africa soo jeedo in ay dib ku gaarto waana ka difaacan doonaa gaarigan ayaa runtii shaki la gelinaya xaqiiqada naqaano gaari tabcan Ethiopian back dabcan daawadayaasha qaar ayaan soo weydiinay booliska caaway sida ogtiisa Koonfur Afrika ma jiro wax booliska oo shaqeeya ama meelaha halista ka shaqeeya boolisku waxay ku egyihiin meelaha ammaankooda sugan yihiin goobaha kale boolisku ka baqaan oo goobaha halis ah kooxaha burcada iyo waliba South Africaanka iyo markaa isku dayeen boobahan hantida Soomaalida iyo ajaanibta ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa inta badan iyagu soo weerara goobahan waxaana iska celiya oo si raganimo leh iska celinaya ganacsatada Soomaaliyeed oo iyagu markaa caaw muujinaya geesinimo iyo karti dheeraada waxa ay ugu tagayaan goob kasta oo ay kooxahaasi ka agdhow yihiin goobahaas sida u jeedaan waxaan filayaa in maqlaysaan codkooda way isku yeeranayaan waxa ay foori ay sameynayaan iyagoo dhawaxaan soo tuuraya si markaasi ay goobtaasi waxa soo laabtay oo maasha Allah soo laabtay Itoobiyaankii Soomaalida ayaa soo laabtay mar kale iyagoo isku day doona inay kala wareegaan goobtaas kale waa daawan doontaan oo si live ayaa u daawan doontaan sida goobtaas looga wareegayo Soomaalidu runtii waxay muujinayaan geesinimo iyo karti dheeraad ah maasha Allah hal si shar gareeyo asxaabay hal arko goobaha halista ah maalin walba waxaad maqashaan ganacsato Soomaaliyeed ayaa lagu dilay Koonfur Afrika waxaad maqashaan dukaan Soomaaliyeed ayaa lagu dhacay kooxaha wax dhacaya iyo sida ay yihiin iyo sida ay xuso hujuumaan ayaad si live halkan uga daawan doontaan haddii Rabbi idmo Ilaahay nafta uu nagu amaan yeelo dabcan waa hormar umaleena gadaal aan laabto dhagaxaan ay soo tuurayaan sida arkaysaan si arkaysaan baangado ayay wataan Let's go like this. We come from the better like that. Or have people. Let's go this way. We come from back. Otherwise, we are doing nothing. Yeah. Serious. One time. No way. Okay, you show us. Is there any way that side? Nothing way. Only that, you know? I didn't go that side. Just show us. Want to go that side? Okay, let's go this way. No, they run. You must run. سمع تلبل سي شرقراي أصحابي waxaan codsanayaa in si wada shargarayo maadaama dad fara badan oo Soomaali ay ku nool yihiin dalka Koonfur Afrika ayna danaynayaan arkaan videogan ama ay si toos ah oo live ah u daawdaan goobahan aad arkaysaan dhagaxaanta sida loogu galo waa u jeedaan dhagaxaantan meesha ku daadsan waxa soo ridaya
oo meel walba kusoo tuuraya kooxaha burcadda ee South Afrikaanka oo iyagu markaa doonaya inay boobaan tukaamadan horteenna ah oo ay difaacayaan ganacsatada Soomaalida iyo waliba ajnabiga goobtan ayaan ku dhuumanayaa laftigeeda maadaama goobta ay tahay goob furan ah Sima come Sima come inside come here sida u jeedaan daawadayaal dhagxaantan waxaa soo tuuraya kooxaha burcadda ah goobtuna waa goob halis ah oo runtii aan lagu aamini karin nafta laakiin waxaa raganimo ay muujinayaan ganacsatada Soomaalida iyo waliba dhalinyarada Soomaaliyeed oo iyagu markaa sameynaya gurmad xoogan gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed iyo tiimka la shaqeynaya ayaa waxa ay mar walba diyaar u yihiin inay badbaadiyaan oo ay ilaaliyaan hantida Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ها هاتي رفعني ورن ديب سلود وانو ديب سلود كتاق انت عاود ها ديب سلود واي عاو ما ويس ها ديب سلود شو والله تكمل قارن ولا بتبادي قارنا كله ولي ولا بتبادينا حد ولا سكوت كلام وابوحان عيدن كوابوحان يا اسكلا ريحانا طعمكم مغلايا يا ابتي ما يبوبك waa ka jira kaashkar hortiisa ma joognaa kaashkar hortiisa joognaa waxa way meel walba taagan yihiin caawa waxay rabaan inay meel walba agta mariyaan marka laakiin kulli Ethioopian waa istifaacayaan oo Soomaalidana dad badan ah jooga واب تكمل توبيان وبدنا يبوبين لكن Soomaalida wali waxba laga ma boobo Soomaalida waa dagaalamaya daawadayaal sidaad u jeedaan goobahani waa goobo halis ah dhalinyaro Ethioopian ayaa meel walba iyagu markaa dhooban sidoo kale dhalinyarada Soomaalida ahna caawinaya laakiin Soomaalidu waxa ay muujinayaan geesinimo dheeraad ah maadaama ay iyagu horboodayaan Ethiopianku way baqayaan inta badan Soomaalida ayaa meel walba tusaysa oo dhiirigelinaysa si ay u dagaalamaan gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed Koonfur Afrika Maxamed Cumar Talyaani ayaa isagu markaa dhagax ayaa la soo riday sida arkaysaan dabcan meeshan inaan ku gambado waaye aan laftigeyga halis All of them died. They are throwing the stone. No. He's running. He's running. He's running. How many are they? Many, seven guys. Seven. Come this side. Come that side. Come this side, fuck off. Yeah. Come this side. Fuck off. Come here. Run, man. Come this side. I want to show you. Come here. It's stupid. Don't throw the brother. Don't throw. Don't. Don't throw, please. Here is a resident. Don't throw. Yeah. Don't throw the stone, please. Fuck off. Come here. sida arkaysaan ganacsada iyagoo Ethiopianka ayaa dagaalamaya dhalinyarada Ethiopiana sida arkaysaan waa ay dagaalamayaan oo waxa ay diyaar u yihiin iska celiyaan kooxaha burcadda ah ee iyagu markaasi naftooda jaraya maalkoodana dhacaya waxa ay muujinayaan runtii karti iyo geesinimo dheeraad ah Soomaalida ayaa caawinaysa sidoo kale goobahan tukaankan aad arkaysaan waxa iska leh kooxo Ethiopiana oo iyagu markaasi hortaan ka caytamaya waxaan iska dhagax la soo tuuray Come. Who called them? Or who called them? No, I see the monk. Come inside, come Baba. No. Don't throw this stone, please. Don't throw this stone. No way, no chance. أصحابته دمانتي وإسلامي أصحابته دمانتي وإسلامنتيهن halkan u soo duceeyo dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika oo iyagu markaa xaalad khatar ah mar walba ku jira Soomaalida iyo ajaanibta kale oo Ethiopianku ay ka mid yihiin mar walba waa kuwa u diyaarsan hazid fiicnay waran محمود dib suluud way saaxib Even catching one is fine. هاني وماشان أنت هاجني كسر عتابة لايف موجود ذو
وماشي نكسر هذا إني وحاول كنتي أو صادق يو وني ما قص هداتك عين مخرك نسوي عن هذا إني ماشي أنا حالد وهالس نقص وجار عمل هذا حالد وادقنت هني هو إنك هو بدنا هذا ملان دوبن ودقحان صوت تورا مركا لكن هذا حالد وأوكي وادقنت قدوميها dhalinyarada Soomaaliyeed Koonfur Afrika ayaa horteeda taagan Maxamed Cumar Talyaani soo dhawaad Talyaani si live ayaad ugu jirtaa Facebooka waxa ku daawanaya 800 oo qof ku dhawaad oo Soomaaliya oo dunida dacaladeeda iyo waliba South Africa la jooga uga sheekay xaaladda dalka iyo waliba sida hadda wax u dhacayaan sida u jeediyeenba meel furan ayaan hadda joognaa nimankii wadanka u dhashaana isku dayay koronto la'aan xaafadda ka jirta awgeed ayayna isku dayayaan maanta saakada hore ayuu bilowday dhibkan iyo weerarkan adiga cabsi badan lagama qabin ganacsiga gudaha ku yaala locationka laakiin galabta markii la gaaray ayay bilaabeen inay ganacsiyada faraha la soo galaan alxamdulillah sidaas awgeed Soomaalida gurmadna soo weydiisatay haddana waxaad moodaa xaafadda boolis inuu gudaha u soo galay baawarkaas ay u jeediyeen waa boolis inta badan gudaha u soo galaan markii locationada dhibkan ka jiro sababtoo ah maanta meeshan dab ka shidnaa markaan soo galnay ayaa dabka daminay nimankan naga carareen nooc walba ku kacnay iyo farsamo kasta ku kacino alxamdulillah ducaan weydiisanayna aaw jiif ma jiro soo noqoteen jiifka ma jiro cabsi badan ayaa ka jirta Soomaalidu hadda waxay go'aansatay inay wax walba jawaab ka bixiso intii ay maalkooda la qaadan lahayn mar dambe aan jaxanjix iyo jiljilaac aan ku gelin arintan walaalaha Etoobiyaanka ayaan garab taagan who can speak English someone come and speak your language. Come, brother. Some guys, they can understand your language. Okay? Come, brother, come. How's the situation? The problem is here. Okay. Somebody is also in then you fighting, you broken shop. Now you see the problem. How many shops are they looting? Even I think so is 7. 7 shops they looting. Until he still is fighting. Somalia and Ethiopia is together. Just you must speak your help language. each other. MashaAllah. Thanks. Sinti shops they loot. Sinti shop they loot. Sima. Nice guy, Sima. Sinti shops they looted. Moto shops. ايش محمدو بوليس كيسكيل علي بوليس سوقلو دا si arkaysaan si live u daawada kooxaha burcada South Africa waa kuwa si toos ah ayaa loo dagaalamaya oo shab la isku dhaxay hadda dabka ayaa iga dhici raba marka si shargareeyo baraadaas xaaladaas ayaan ku jirnaa waxaana rajeynayaa in ganacsatada iyo waliba ajnabiga kale iyagu isgarabsanay inay caaw ka guuleystaan kooxaha burcada oo iyagu markaa doonaya inay boobaan hantida Soomaalida iyo waliba ajaanibta kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika si arkaysaan dagaal toos ayaa bilowday kooxaha burcada rasaas ayay wataan oo hub hubeysan yihiin meel walbana waxay la taagan yihiin qori sidaas iyo nabadgelyo ayaan kaga tagayaa saaxiibayaal oo soo duceeyo dhammaan waxa la loo soo duceeyay ganacsatada Soomaalida oo iyagu markaa dhibaato mar walba ku jira kuwa mar walba mataqaana cadow gacanta ugu jira xaalad kastana ku jira gaari Ethiopian ay saaran yihiin gurmad ayaa goobtan soo gaaray waxa la qaadayaa alaabtii ama mataqaana dhagaxaantii iyo waliba taayiradii ay jidka ku gooyeen kooxaha burcada si live ayaa u daawanaysan sa arkaysan caawa telefoonka oo dabkiiga dhici raba goobtana oo goob aan koronto lahayn waxaan kaga tagayaa saaxiibayaal sidaas iyo nabadgelyo loo soo duceeyo saaxiibayaalow waa u jeedaan xaaladdu sida ay tahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan ka codsanayaa inaad sii sheergaraysaan si loo arko xaaladda halista ay mar walba ku jiraan Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika iyo goobahan halista ay ku nool yihiin salaamu calaykum waraxmatullah
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانا أصحابتا يجو مركز سيدا اللايف كأودا وانا يبرتا نقول يا فيسبوك عاو حنكسو قلنا هاي ديغان كالليرا ديبسلوت أو قياسي 60 كيلومتر أجرة مقالة جوهانسبرغ waxaa halkan ka soconaya boob ay sameynayaan kooxaha burcadda South Africaanka ah iyadoo ay boobeen dukaamo dhowr ah oo ku yaala deegaankan sidoo kale waxa ay isku dayaan ilaa hadda inay boobaan dukaamo kale oo iyagu markaa ka haray goobaha ganacsi ee ku yaala deegaanka Dibsloot sidaad arkaysaan waxaan ku dhex jiraa oo aan la socdaa qaar ka tirsan ganacsatada Soomaalida iyo waliba Itoobiyaanka isugu jira oo iyagu markaasi badbaadsanaya hantidooda ku taala wadadan deegaanka Dibsloot sida arkaysaan kooxaha burcadda South Africaanka ah oo ay idin muuqdaan dabcan ama dabkaasi waa goobta ay ku sugan yihiin oo ay ka dhagaxyeynayaan dadka isla markaana lama gali karo oo waa goob halis ah waxa ay la socda qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyagu markaasi aan iska soo raacnay magaalada Johannesburg si aanu markaa u badbaadino dukaamada Soomaalida dukaamo kale oo Itoobiyaan ay leeyihiin ayaa iyagu halkan ku sugan si live ayaa u daawan doontaa waxa halkan ka dhacaya iyo nolosha Soomaalida ku nool South Africa oo inta badan lagu geysto dhibaatooyin kala gedisan oo isugu jira dilal iyo waliba dhac iyo boob loo geysto hantidooda iyadoo markaasi aysan jirin cid markaasi u soo gurmato marka laga reebo in iyagu lafaantooda ay iscaawiyaan share gareeya asxaabay si share gareeya si arkaysaan xabad ayaa meel walba ganacsatada Soomaalida ayaa iyagu markaasi isku dayay inay badbaadiyaan goobtan ayaa goob halis ah oo runtii cabsi badan ay ka muuqato si arkaysaan ganacsatada Soomaalida iyo waliba Itoobiyaanka isugu jira ayaa badbaadinaya hantidooda kooxaha burcadda ah sida arkaysaan iyaga ayaa samaystay dhufayskan iyo waliba dabkan shitay si share gareeya asxaabay hal si share gareeyo goobta goob halis ah oo cabsi ah ganacsatada Soomaalida ayaa iyagu si live markaa isku difaacaya iskalaal No. Don't throw the stone, please. Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa iyagu markaasi iska difaacaya kooxaha burcadda South Africaanka ah ee isku dayay inay boobaan hantidooda waxa halkan ka soconaya runtii gurmad culus oo ay sameynayaan Soomaalida iyo waliba Itoobiyaanka oo iskaashanaya iyo waliba ajaanibta kale ee halkan ku nool goobaha ayaa goobaha halis ah iskala xabadora si share gareeya barnaamijka live ayaan ugu jiri doonaa inagoo wareysan doona qaraxsada Soomaalida iskalaal iskalaal dhagaxniyo dhagax iska ilaali ma jiro wax booliis ah oo caawinaya ganacsatada iyadoo goob kasta ay tahay goob halis ah booliis ma joogaan goobtan sida arkaysaan waa goob si toos ah ay isku weydaarsanayaan ama ganacsatada Soomaalida iyo waliba ajaanibta kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika ay isku difaacanayaan oo ay ilaalinayaan hantidooda iyadoo goobtu ay tahay goob aad khatar u ah marka loo eego sida jawigu uu yahay dukaamadan aad arkaysaan oo dhammaantood xiran waxa waardiyeynaya oo mataqaanaa kor ka ilaalinaya ganacsatada Soomaaliyeed iyo waliba kuwa ajnabi ah goobahana waa goobo halis ah oo runtii mararka qaar ay dhici karto in dilal meeshan ay ka dhacaan maadaama kooxaha burcadda South Africaanka ay yihiin kuwa hubaysan oo qoryo wata sida aad maqlaysaan rasaasta ayaa meel walba ka dhacaysa oo ay ridayaan kooxaha burcadda South Africaanka Ilaahay naga bixiyo u soo duceeya ganacsatada Soomaaliyeed iyo waliba kuwa ajnabiga ah ee muslimiinta ay ku nool dalka Koonfur Afrika oo caawa xaalad aan fariid ah ku jira share haldo asxaabi share haldo
demi dabkaas aad arkaysan goobtan waa laga wareegay kooxaha burcada oo waxa gacanta ku dhigay ganacsatada Soomaalida iyo waliba ajnabi kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika waxa ay daminayaan taageeradii markaasi ay shideen kooxaha burcada gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Maxamed Cumar Talyaani ayaa caawa kamid ah dadka Soomaaliyeed ee iyagu soo gurmaday ee halkaana ka ilaalinaya kooxaha burcada oo isagu markaasi ku jiro hawlgal culus sida arkaysaan xaaladdu waa meel khatar ah waxa ka baxsan kara nin raga nin ma dhaafta ayaa ka baxsan kara sida u jeedaan ganacsatada Itoobiyaanka ah ee iyagu markaasi ku nool deegaanka waxa ay wataan hub ay isku ilaalinayaan bangada ay wataan sida arkaysaan oo aad ugu jeedaan gacanta kor just show them please show them Somali waxa ku male raala wada Itoobiyaanka ku male raala brada ay war xaaladu waa والله الحمد لله be careful حالتك شكي وسيدي درانك هذا حلقه قب ما شاء الله حالتك شكي حالته حساسه دول لو جدا حالد laga sheekeeyo meesha uu taalo دمي دبكان دمي عمر بنتو اي برادر هذا عندي والله ساعه نو bilaabay saakay ilaa 2 saac waa garta ilaa saacadan waa 4 saac oo habeenimo u maleeyaa saacadan waa garta saana la isaga soo horjeedaa marka waxa waaye waa iska soo horjeednaa barna waa dukaamanka waa inay jabsadaan isku dayeen hadda waa iska celinay insha Allah haddana waxaan inaan hantida u dhimano ayaan rabnaa insha Allah haduu ilaahay marka hadda goobtan aan arkayno dabcan waa goob dab ee ka shidaan kooxaha burcada sidee ku suurto gashay inaad la wareegtaan wallahi waa la wareegnay waxa waaye raga noo soo gurmaday oo maaragtay nooga yimiday Bayfal waxa waaye waana la wareegnay insha Allah haduu ilaahay haddana waxay ku jiraan mukubadan insha Allah waa gelinaa caawa inaan jiifano ku matala gelin insha Allah haduu ilaahay dukaanka xagee ku yaala adiga dukaankayga wuxuu ku yaalaa sigiska waa ka hadda gadaashayda waaye alxamdulillah wax hadda dhiban ilama gaarin goobta korontadii ayaa laga jaray goobta yaa korontada ka jaray korontada laga jaray dawladda ka jartay waxa korontaa ma leh tukadan marka hadda dhagax iska ilaahay dibka marka insha Allah haduu ilaahay waa taacib wala wala dadaalina insha Allah antiday wali sidaad arkaysaan midkani waa mid kamid ah kooxaha burcada South Africa oo isku daynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka celiyaan goobtan kala okay brother sorry just go Contact me my photo. okay Take photo when you come here. kala guys kala ninkan cab waadi ku xaniyo ninkan in dagaal wada maane qawrta siyo waxa siga qabta adig war anaga dhaxdeer kale dhagaxa bilowday aan kaga bado dhagaxa daawadayaal sidaad u jeedaan goobtan ayaa goob khatar ah oo waliba goob dhufays ah sidaad arkaysaan oo ay isku hayaan burcada South Africaanka oo iyagu markaa boobaya dukaamada Soomaalida iyo waliba ajaanibta kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika iyo waliba ganacsatada ajaanibta oo Soomaalidu horboodayso oo iyagu markaa iska difaacaya hantidoodana ka ilaalinaya kooxa saakay ayuu bilowday sida ay noo sheegeen qaar ka tirsan dadka goobjoogayaasha ama ganacsada ay ku nool halkan boobkan ay sameynayaan walina waxa soconaya dabcan sida arkaysaan fariin kale ayaa ka soo yeeraysa dhagaxaad kale dhagax si arkaysaan dhagaxaan ay soo ridayaan kooxaha burcada South Africaanka goobahani waa goobo halis ah وانا نبقى اقول هالمر نيو هالمر one time wale keena dhagaxaan qaata dhagax sima difan wara dhagax ku dhacay goobtu waa goob halis ah dabcan saaxiibayaal si ay u jeedaan saas ayaa dhacaysa meel kasta ka dhacaysa noloshan ay ku nool yihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika waxaan ka codsanayaa asxaabta inay share gareeyaan maadaama goobahan ay goobaha halis ah
Let's go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go inside, all. Go inside. Let's go. Go. على الاستدفاع Guys, go. جايز على الاستدفاع sida arkaysaan waxaa socota goobtaas mugdiga u jeedaan waa goobta ay ku sugan yihiin kooxaha burcada waxaana wali sida arkaysaan rasaas ayaa ka dhacaysa halkaasi iyadoo kooxaha burcada ay soo ridayaan rasaas dhalinyarada Soomaalidana way istifaacayaan wadooyin fara badan ayaa soo gala goobtan wada kastana waxaa taagan kooxaha burcada oo iyagu markaasi boobaya dukaamada Soomaalida iyo waliba Itoobiyaanka ay ku leeyihiin halkan inkastoo caawa ay si wada jir isku difaacayaan ganacsada ولي waxaa soconaysa rasaas iyo waliba ma sii hadli karo dabcan sima mindina shukr alle وروحان xogayaha guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed Koonfur Afrika Umar Ali Umar Bantu ahna madaxa ammaanka ee dhalinyarada Soomaaliyeed Koonfur Afrika ayaa caawa halkan ku sugan شركة سالة ثمانية حلو شركة روسكا جنكدر ما نقرأ سيسكون كلام سكيلال طبعا سيدا أركيسان شركة كوحة برعدة يا لقى سوق هذي يجوا مركز دوني كوحة برعدة سوق أفريقيا إنه كوكران تكمل كركودا أما يدرب يده وقصوا بودان سي أو بابان هنتيدا الجانب تاع كنا لدل كونفر أفريقيا يولي بقى نعسى الصوماليات أي كانوا اللي دلك قدومية محمد عمر تلياني أيا قوبتن كسوغان isagoo markaasi jaranjarta wada difaacayana ganacsada Soomaaliyeed caawa halkan dhibaatada loogu geysanayo iskala dhagax iskala liye tooshan u baahan dabcan tooshan daarayna xirsuga روحوا كلها dhagax ma ku dhac goobahan ma aha goobo baabuurta loogu talagalay baabuurkaas wuxuu noqon doonaa ma naqaan ma baabuur kooxaha madowga ay leeyihiin oo burcadu ay wataan ma baabuur booliis ah ma baabuur ganacsato ay leeyihiin lama garanayo dabcan xitaa baabuurtu way cabsanayaan goobahan aad u jeedaan runtii halista ah ay ku nool yihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika waa goobo runtii nafta aan lagu aamini karin indhahana aan u roonayn halkaas ay ganacsatada Soomaaliyeed maalin walba ka biilaan qoysaskooda Soomaaliyeed ku nool Soomaaliya iyo ay ku caawiyaan familiadooda maadaama Soomaaliya ay tahay wali ammaankeedu oosan dhameystirnayn gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed Koonfur Afrika Maxamed Umar Talyaani ayaa caawa horteeda taagan gudoomiye soo dhawaw dabcan caawa gurmad xoog la ayaad goobta ka geysateen adiga iyo ganacsada ajaanibta ay ku nool deegaanka Dibslood qiyaasii 60 kilomitir jira magaalada Johannesburg waa sidii caawa dareenkaada sidaas hawshan ku bilaabatay arintan isgoormay بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد إن عنا أوجدين هذا وحن كسر دميني دبب ودوين كوجوين niman badan oo wadanka u dhashay wadooyinka jaray si wadooyinka uga jiraan booliska ama dadka soo gurmanayo si ay hantida meesha taalo ay u dhacaan ama ay u qaataan sidaas awgeed korontada xaafadda gabi ahaan way ka jaran tahay si riski ayaan ku soo galnay xaalad adag ayaan ku soo galnay xoog ayaan wadooyin ku soo furanay alxamdulillah si nabadgelyo ayaan u imaanay xaafadana waxa u badan dadka dariska aan Itoobiyaanka oo meel walba daadsanaa wili waxaan ka dul imaanay dukaan la jabsanayay markaan soo galeynay oo wiilal dhalinyaro Itoobiyaan wadada noo istaageen ay dhaheen warkaalay noo gurmada hada alxamdulillah meeshan waan ka kicinay nimankii dukaankiina wiilal kale Soomaaliya ku jiro meesha aan ka soo badbaadinay haddana waa kuwa hadda soo qaylinayo way soo laabteen sida u jeedin mar walbana sidaasaan gadaalna u ruuxna isku dayeena mana dhici doonto insha Allah taala intay naf Soomaaliya ama naf kale West Eastern Africa soo jeedo in ay dib ku gaarto waana ka difaacan doonaa gaarigan ayaa runtii shakil gelinaya xaqiiqada naqaano dabcan Itoobiyana وباك طبعا daawadayaasha qaar ayaan soo weydiinay booliska caaway sida ogtiin Koonfur Afrika ma jiro wax booliis oo shaqeeya ama meelaha halista ka shaqeeya boolisku waxay ku egyihiin meelaha ammaankooda oo sugan yihiin goobaha kale boolisku ka baqaan oo goobaha halis ah kooxaha burcada iyo waliba South Africaanka ay markaa isku dayeen boobaan hantida Soomaalida iyo jaanibta ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa inta badan iyagu soo weerara goobahan waxaana iska celiya oo si raganimo leh iska celinaya ganacsatada Soomaaliyeed oo iyagu markaa caaw muujinaya geesinimo iyo karti dheeraada waxa ay ugu tagayaan goob kasta oo ay kooxahaasi ka agdhow yihiin goobahaas sida u jeedaan waxaan filayaa in maqlaysaan codkooda way isku yeeranayaan
waxa ay foori ay sameynayaan iyagoo dhagaxaan soo tuuraya si markaasi ay goobtaasi waxa soo laabtay oo maasha Allah soo laabtay Ethiopiankii Soomaalida ayaa soo laabtay mar kale iyagoo isku day doona inay kala wareegaan goobtaas kale waa daawan doontaan oo si live ayaa u daawan doontaan sida goobtaas looga wareegayo Soomaalidu runtii waxay muujinayaan geesinimo iyo karti dheeraad ah maasha Allah hal si shar gareeyo asxaabay hal arko goobaha halista ah maalin walba waxaad maqashaan ganacsi Soomaaliyeed ayaa lagu dilay Koonfur Afrika waxaad maqashaan dukaan Soomaaliyeed ayaa lagu dhacay kooxaha wax dhacaya iyo sida ay yihiin iyo sida ay xuso hujuumaan ayaad si live halkan uga daawan doontaan haddii Rabbi idmo Ilaahay nafta uu nagu amaan yeelo dabcan waa horumar umaleena gadaal aan laabto dhagaxaan ay soo tuurayaan sida arkaysan si arkaysan baangado ayay wataan Let's go like this. We come from the better like that. Or have people. Let's go this way. We come from back. Otherwise, we are doing nothing. Yeah. Serious. One time. Have people here. No way. Okay, you show us. Is there any way that's it? Nothing way. Only that, you know? I didn't go that side. Just show us. Want to go that side? Okay, let's go this way. No, they run. You must run. سمع تلبل سي شرقراي أصحابي waxaan codsanayaa in si wada shargarayo maadaama dad fara badan oo Soomaali ay ku nool yihiin dalka Koonfur Afrika ayna dananayaan arkaan videogan ama ay si toos oo live u daawadaan goobahan aad arkaysaan dhagaxaanta sida loogu galo waa u jeedaan dhagaxaantan meesha ku daadsan waxa soo ridaya oo meel walba ku soo tuuraya kooxaha burcada ay South Afrikaanka oo iyagu markaa doonaya inay boobaan tukaamadan horteena ah oo ay difaacayaan ganacsatada Soomaalida iyo waliba ajnabiga goobtan ayaan ku dhuumanayaa laftigeeda maadaama goobta ay tahay goob furan ah Sima come Sima come inside come here sida u jeedaan daawadayaal dhagaxaantan waxaa soo tuuraya kooxaha burcada ah goobtuna waa goob halis ah oo runtii aan lagu aamini karin nafta laakiin waxaa raganimo ay muujinayaan ganacsatada Soomaalida iyo waliba dhalinyarada Soomaaliyeed oo iyagu markaa sameynaya gurmad xoogan gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed iyo tiimka la shaqeynaya ayaa waxa ay mar walba diyaar u yihiin inay badbaadiyaan oo ay ilaaliyaan hantida Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ها هاتي رفعني ورن ديب سلود وانو ديب سلود كتاج انت عاود ديب سلود واي عاو ما ويس ديب سلود شو والله تكمل قارن ولا بتبادي قارن كله ولي ولا بتبادينا حد ولا سكوت كلام وابوحان عيدنك وابوحان يا اسكلا رجحانا طعمكم مغلايا يا ابتي ما يبوبك وكجرا كاشكر hortiisa ma joognaa kaashkar hortiisa joognaa waxa way meel walba taagan yihiin caawa waxay rabaan inay meel walba agta mariyaan marka laakiin kulli Ethiopian-ka way isdifaacayaan oo Soomaalidana dad badan ah joogo ما بتكمل توبيان وبدنا يبوبين لكن سومالي ولي وحبل لقى مبوب سومالي وده قال ما daawadayaal sidaad u jeedaan goobahani waa goobo halis ah dhalinyaro Ethiopian ayaa meel walba iyagu markaa dhooban sidoo kale dhalinyarada Soomaalida ahna caawinaya laakiin Soomaalidu waxa ay muujinayaan geesinimo dheeraad ah maadaama ay iyagu horboodayaan Ethiopiaanku way baqayaan inta badan Soomaalida ayaa meel walba tusaysa oo dhiirigelinaysa si ay u dagaalamaan gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed Koonfur Afrika Maxamed Cumar Talyaani ayaa isagu markaa dhagax ayaa la soo riday sida arkaysaan dabcan meeshan inaan ka gambado waaye aan laftigeyga halis All of them died. They are throwing the stone. No. He's running. He's running. He's running. How many are they?
7 guys. 7. Come this side. Come that side. Come this side, fuck off. Yeah. Come this side. Fuck off. Come here. Run, man. Come this side. I want to show you. Come here. It's stupid. Don't throw the brother. Don't throw. Don't. Don't throw, please. Here is a resident. Don't throw, yeah. Don't throw the stone, please. Fuck off. Come here. sida arkaysaan ganacsada iyagoo Etoobiyaanka ayaa dagaalamaya dhalinyarada Etoobiyaana sida arkaysaan waa ay dagaalamayaan oo waxa ay diyaar u yihiin inay iska celiyaan kooxahan burcadda ah ee iyagu markaasi naftooda jaraya maalkoodana dhacaya waxa ay muujinayaan runtii karti iyo geesinimo dheeraad ah Soomaalida ayaa caawinaysa sidoo kale goobahan tukaankan aad arkaysaan waxa iskale kooxo Etoobiyaana oo iyagu markaasi hortan ka caytamaya waxaan iskala dhagax la soo tuuray Come. Who called them? Or who called them? No, I see the mouse. Come inside, come over. No. Don't throw this stone, please. Don't throw this. No way, no chance. أصحابته دمانتي وإسلامي أصحابته دمانتي وإسلامنتيهن halkan u soo duceeyo dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika oo iyagu markaa xaalad khatar ah mar walba ku jira Soomaalida iyo ajaanibta kale oo Etoobiyaanku ay ka mid yihiin mar walba waa kuwa u diyaarsan حسعيد في يعني ورد محمود ديب سلود واي صاحب even catching one is fine. هاني وماشان أنت هاجني كسر عتابة لايف موجود زيزو وماشان كسر عتابة هذا إني وحاول كنتي أو صادق يو وني ما قص هداتك عين مخرك نسوي عن هذا إني ماشان حالد وهالس نقص وجار عمل هذا حالد وادقنت هني هو إنك استو هو بدنا هذا ملان دوبن oo dhagaxaan soo tuurtuura marka laakiin hadda xaaladdu waa okay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed Koonfur Afrika ayaa horteeda taagan Maxamed Cumar Talyaani soo dhawaad Talyaani si live ayaad ugu jirtaa Facebooka waxa ku daawanaya 800 oo qof ku dhawaad oo Soomaaliya oo dunida dacaladeeda iyo waliba South Africa la jooga uga sheekay xaaladda dalka iyo waliba sida hadda wax u dhacayaan sida u jeedinba meel furan ayaan hadda joognaa nimankii wadanka u dhashaana isku dayay koronto la'aan xaafadda ka jirta awgeed ayayna isku dayayaan maanta saakada hore ayuu bilowday dhibkan iyo weerarkan adiga cabsi badan lagama qabin ganacsiga gudaha ku yaala locationka laakiin galabta markii la gaaray ayay bilaabeen inay ganacsiyada faraha la soo galaan alxamdulillah sidaas awgeed Soomaalida gurmadna soo weydiisatay haddana waxaad moodaa xaafadda boolis inuu gudaha u soo galay baawarkaas ay u jeediyeen waa boolis inta badan gudaha u soo galaan markii locationada dhibkan ka jiro sababtoo ah maanta meeshan dab ka shidnaa markaan soo galnay ayaa dabka daminay nimankan naga carareen nooc walba ku kicinay iyo farsamo kasta ku kicino hada alxamdulillah ducaan weydiisanayna aaw jiif ma jiro soo noqoteen jiifka ma jiro cabsi badan ayaa ka jirta Soomaaliduna hadda waxay go'aansatay inay wax walba jawaab ka bixiso intii ay maalkooda la qaadan lahaa in mar dambe aan jaxanjix iyo jiljilaac aan ku gelin arintan walaalaha Etoobiyaanka ayaan garab taagan who can speak English someone must come and speak your language. Come, brother. Some guys, they can understand your language. Okay, come, brother, come. How's the situation? The problem is here. Okay. Somebody is also in then you fighting, you broken shop. Now you see the problem. How many shops are they looting? Even I think so is 7. 7 shops they loot. Until he still is fighting. Somalia and Ethiopia is together. Just you must speak heal your language. each other. ما شاء الله thanks لما يشوف في بصدق في بصورة في يكويو سنتي shops they loot سنتي shops they loot سمع نايزيغا سمع سنتي shops they looted ماتو shops ايش محمدو بوليس كيسكيل علي بوليس سوقلو ده si arkaysaan si live u daawada kooxaha burcadda South Africa waa kuwa si toos ah ayaa loo dagaalamaya oo shab la isku dhahay hadda
dabka ayaa iga dhici raba marka sii shargareeya baraadaas xaaladaas ayaan ku jirnaa waxaana aan rajaynayaa in ganacsatada iyo weliba ajnabiga kale iyagu isgarabsanaya inay caaw ka guuleystaan kooxahan burcadda ah oo iyagu markaa doonaya inay boobaan hantida Soomaalida iyo weliba ajaanibta kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika